dadka Ethiopian bay noo yihiin in la dhibaateeyana waa mamnuuc. Ciidamada ammaanku waxay amar ku haystaan cid kasta oo dadka ajnabiga guud ahaan gaar ahaan dhibta soo baxday dadka Ethiopia la dhibaateynayo. Maalmaha wax soo noqnoqday in dadka ajnabiga ee Somaliland jooga qaarkood dhibaato la gaarsiiyay. Somaliland waa dal iyo dad martigelinta ku fiican oo dad gobonimada iyo ikraamka ku fiican. dalka Ethiopia xiriir gaar ah inaga dhaxeeya oo taariikhi ah oo muddo dheer soo jiray. Marka dadka reer Ethiopia iyo dadka Somaliland ma kala maarmaan. dadka Ethiopia halkan u yimaadaan in qolo gaar loola maxo waa mamnuuc. dadku ama waa ajnabi haddii Ethiopia laga hadlayo dadka ku noolna waa Ethiopian. marka in cid gaar loola baxo waa mamnuuc. dhammaan luqadda dadka dawladda u shaqeeya iyo mas'uuliyiinta waa ka mamnuuc. waxay Ethiopia ka hooseeyeen halka ay uga daadegaan. dadka Ethiopian bay noo yihiin in la dhibaateeyana waa mamnuuc. ciidamada ammaanku waxay amar ku haystaan cid kasta oo dadka ajnabiga guud ahaan gaar ahaan dhibta soo baxday dadka Ethiopia la dhibaateynayo way reeban tahay. ciddii sharci darro dalka ku joogta ama faldambiyeed samaysa hay'adaha amniga shaqo ku leh iyagoo qura go'aan ka gaari kara. qof shacabi isagu sharciga gacantiisa kuma fulin karo, qofna ma dhibaateyn karo. qofkii dhibaateeyana sharciga qaban doona. hay'adaha ammaankuna waxaan faraynaa inay arrintaa nabadgelyada dadka ajnabiga ka mas'uula in la ilaaliyo guud ahaan. tijaabi nasiibkaaga oo ka qayb qaado qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Bluecom ugu talagashay macaamiisheeda cusub sanadkan. wareejiya ku guulayso qiimo dhimis u dhaxaysa 5 ilaa 30% oo hel internet xawaarihiisu sareeyo. kaliya taabo linkiga moobilkaaga lagugu soo diray. maxaad sugaysaa? wareejiya oo ku guulayso internet xawaarihiisu sareeyo.